kulan wacan daawadayaal soo dhawaada fadlan channelkan haddii aad ku cusub tahay si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya subscribe dhe sababtoo ah waxba kaama dhibayso adiguna waxaad helaysaa bedelkeeda taas warar taxana ah oo ka hadlaya xaaladaha Soomaaliya iyo dunida inteeda kale haddii aan ku bilowno magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud xarunna u ah maamulka Galmudug oo uu ku shaqeeyo oo maalmihii la soo dhaafay jahawareer siyaasadeed oo aad u xoogan uu ka taagnaa iyo ismaandhaaf la xiriira cidda sugaysa ammaanka magaaladaasi ayaa wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye Qarfaan waxa uu sheegay in wax kasta oo dhibaato keenayay laga gudbay sida uu yiri sida daraadeedna dawladda federaalka gaar ahaan xukuumaddu ay wado dadaal kasta oo la rabo in lagu xasiliyo Galmudug taas bedelkeeda war ka duwan xaaf ayaa sheegay marka horese ku soo dhawaada warkii uu ka shanqariyay wasiirka arrimaha gudaha waxaan rabaa dhammaantiin inaan idinkugu bishaareeyo xoogaagii taagtaagga ahaayo maalmahan magaaladu ku jirtay in isbeddel jiro isbeddel isu soo dhawaasho isbeddel dhinaca khayrka dadkii amuurahan ay khuseeyeen oo labada dhinac ahaa inaan hadda ka soo baxay shir lagu go'aansaday wixii khaladaadahoo dhacay iyo wixii tabashaahoo jiray in inta la galo la dhammeeyo is-afgarad ah aan wax hagaajinno meeshii aan dhabbaha uga leexannay intaan aan jeerinka iyo qabada dhex marayn gadaal inta u laabanno meeshii dhabbuhu ka toosnaayo aan ka nimid aan dib ugu laabanaa timid shirka ayadoo ergooyinku weli jidka ku soo jiraan inaan bilowno ahaa qorshahayaga si ay u soo dedejiso kuwa maqanin inay yidhaahdaan shirka ka gaara waxyaabihii magaalada ka dhacdhacayay iyo kala shakigii iyo dhaqdhaqaaqii muujinayay inaan la isku raacsanayn arrinka ayaa saameeyey ilaahay waxaan ka rajaynaa fariinta caawa la iskula soo laabtay inay ka qaado carqaladdii saarnayd horena loogu socdo shirweynihii lagu heshiiyey Galmudug inay ka soo wada qayb gasho oo dhaqankeedu gaar ahaan iyo haweenkeeda iyo dhalinyaradeeda iyo culimmadeedu ay ka soo qayb galaan u dhaqsan noo bilaaban doono haddii aan la yidhaahdo barnaamijka marka dib u heshiisiinta culayskiisu kuma salaysna reer hebela ayaan hore 5 naga dilay annaguna 4 aan ka dilnay ninkii ziyaadada ahaa hana la siiyo in meel loo fariisto uma badna culayskiisu kaas ma aha degaanan annagu deganaynay naga durugsadeen ma la dagaalnamase waa nooga kicinaysaan ma aha miisaankiisa wuxuu ku jahaysan yahay in la yidhaahdo Galmudugay haddaad isu timaadeen dowlad idin kala dhicisa dowlad waxaa idin kala jira idin kala qaada tuuga idinka qabato xabis geysa cadaalad keenta nabadgelyo keenta adeegyada Galmudug u baahan tahay bixisa horumar iyo maamul aad kula tartantaan dowlad goboleedyada idinka tege keenta taasaa waqti u heli doonta dhaqaale u heli doonta 4 sano ay haysato waqtiya waxa idin kala jira inay idin kala celiso aan aadno dowlad goboleedkaas inaan dhisno reer Galmudugow dowladdii intaas idin qaban lahayd dhista miisaanka iyo hadafka guud ee shirka dib u heshiisiinta loogu socdaana waa kaas waxaa iga go'aana mas-uuliyaddayda iyo mas-uuliyadda wasaaradayda waxyaabo badan oo riix iyo qof jeclaysi iyo mid xaqiisa loo qaado mid kale iyo mid garabka la soo qabto iyo mid hoos loo riixo hadday jiri jireen waqti hore waxaan idinka ballan qaadaa inta ilaahay iga karsiiyo inay noqoto beelahaas iyo ergooyinkooda iyo guddiga doorashada iyo odayaasha soo xulaaya
iyo xildhibaanada ay keenayaan inta cadaalad u gaari karto oo annagu aan karno inaan gaarsiino insha Allah. isla wararka galmudug ayaynu ku guda jirnaayay madaxweynaha dowladda goboleedka galmudug madaxweynihii shaqada ka tagay Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in shirka ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee arrimaha dib u heshiisiinta uu yahay sida uu u tilmaamay ama uu u qeexay seminar lagu maaweelinayo dadka galmudug sida daraadeed dhan kale waxa uu baaq u diray dad kale oo Soomaaliyeed oo uu sheegay in muhiim tahay inay ka soo qayb galaan shirka Hobyo ka socda aan maaragtay ugu faraxsanahay waxa weeye arrinta maanta halka loo joogo waa nabadda galmudug nabadda habargidir kaliya mali midnimada habargidir waxay horseed u tahay midnimada galmudug iyo dhismaha galmudug iyo sharafta galmudug iyo horukaca galmudug ayay maaragtay u tahay hordhac marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shirkan dadkii ka soo shaqeeyay oo isku soo dubariday oo ilaa meel dheer ka keenay oo aan ogahay 3-4 bilood ka hor in guddiyaal survey ah ama sahan ah oo socda ay noogu yimaadeen Gaalkacyo noogu yimaadeen Dhuusamareeb markaa ka bacdina go'aanka lagu gaaray in la keeno Hobyo waa magaalo qadiimi ah waa magaalooyinkii Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb iyo kulligood magaaladii dhashay weey in taariikhdeedii la soo celiyo oo shirarka lagu qabto waxaan ogahay mid kale oo 1925 ahaa oo Hobyo inta lagu qabtay haddana ceelhuur lagu gunaanaday waa 94 sano ka hor weey buugii laga qoray kitaabadii laga qoray heshiiskii waa yaala aad iyo aad baan uga xumahay maanta ma wado laakiin waan soo bandhigi doonaa waa keeni doonaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa reer Hobyo hadday tahay gudoomiye maaragtay degmada haddii ay tahay shacabka reer Hobyo iyo nawaaxiga u dhow oo dhan oo u soo dhaweeyay maaragtay shirka kan si qurux badan oo aan weligeedii alle la arag waxaan ognahay dadkii guryaha deganaa magaalada Hobyo in ugu yaraan 50-60 guri laga guuray oo loo baneeyay martida waxaan ognahay in maalintii intaasoo xoolaa laga keeno miyiga waxaan ognahay dadka reer Hobyo ninbaa iigu yimid Muqdisho maalin dhaweyd wuxuu yiri quraacdii baa intay dhaaftay baan waxaan tagay buu yiri makhaayad beer baan ka cunay buu yiri markaan beerkii cunay baan gabar joogtay waxaan ku iri buu yiri lacagtu waa imisa waxa ii weydiisay buu yiri soo ka mid ma ahid ergada shirka waa gabar magaalada dhexdeeda makhaayad ku haysata ka mid baan ahay buu yiri waxba lagaama rabay oo iska tag bayt waxyaalaha muujisada ah oo la yaab kale oo magaaladan lagala kulmay ka mid tahay kuwa kaloo badanina waa soo socdaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin intii soo abaabushay intii hirgelisay guddiga qabanqaabada kuwii hore oo fakeray saraakiishii qoraalada soo samaysay iyo inta hadda wadaba iyo ergooyinka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa kulligood sida u dhanyihiin maanta aniga waa idin soo booqday waxna idinma wadin shirka gabagabadiisana waa imaanaya haddii alla idmo waxaan kaliya oo rabay inaan sheego oo ku dhawaaqa mar kale galmudug 2 bilood ka hor waa tii aan Dhuusamareeb markaan ka soo tagnay dowladda federaalka waanu la hadalay mar haddii aan arkay in ay Dhuusamareeb iyo Cadaado iyo Caradii ay xoogaa tashwiish galay ayaan waxaan ku soo dhaweeyay in dowladda federaalka ay shaqaha qabato bal waxay qaban kartaa qabato hadafkaygu wuxuu ahaa
inay xeraanay huusho isu geeyaan dhuusamareeb iyo cadaado isu geeyaan ahlu sunnadii hore iyo galmudugta cusub galmudugtii isku soo dhaweeyaan wixii jira ka shaqeeyaan oo ay hawsha maadaama anaga inta yabyabtii iyo dhibaatadii nagu badatay yaan bal aanu kaadina markaan bal ku eegno dowladda federaalka ee hawshii markii ay qabatay run ahaantii saluug badan baa jira maanta oo ugu dambeeyay warkii shalay ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha galmudug ma dhiman madaxdiisii wasiiradiisii xildhibaanadiisii iyo madaxweynaheedii waa joogaan cidlo ma aha waxaan rajaynaynaa haddii wax la dhisana inaan ka noqono udubdhexaad inaan ka noqono ayaan rabnaa inaan wax ka dhisno inaan wax quman dhisnaan rabnaa waxa qumanoo aan dhisaynana ilaahay maaragtay nala garab galo waa nala garabgeli doonaa waxaa kale oo aad iyo aad muhiim ah soomaaliya 30 sano la soo dhaafay waxaa dhici jirtay sanadkii 40 milyan oo dollar baa waxay ku baxdaa dib u heshiisiin wax la yiraahdo dib u heshiisiintaasi waa seminar iyo workshop iyo NGO wada dib u heshiisiinta maanta waa ka bedelaynaa magacii waxaan ka dhigaynaa dhab u heshiisiin inaysan dhalanteed noqonee dhab noqoto oo wax dhaba lagu heshiiyo maanta ito gallisoor iyo meesha la yidhaahdo dhabbada iskuma socdaan haddaa raalliga ahaada jaamaxaange iyo xasan yarana waxay wada joogaan baa laga yaabaa dhuusamareeb ayadoo midna hoolka dhinacaa ka fadhiyo midna dhinacaa ka fadhiyo waa la heshiiyey haddii la yidhaahdo labadii magaalana aysan isku socon sow dhibaato ma xasan yar wuxuu tabanayaa gurigii gallisoor inuu ku laabto jaamacana wuxuu rabaa in carrada la wada daaqo labaduba waa rabaan heshiisa in laysu keeno oo wax loo kala qaado oo kii guriga gurigiisa loo cesho oo kii hantila hantidiisa loo celiyo oo kii dhiig ka maqan yahay loo mago miyaysan ahayn dhab oo heshiisiinta horta waa taa ee ma aha workshop iyo NGO maaha laga bilaabo maanta galmudug waxaan rabnaa in ay samayso dhab heshiisiin waxaan ugu baaqayaa beelaha galmudug oo hadda halkaan ka maqan inay nagala soo qayb galaan dhab heshiisiinta ka furan hobyo in ay intii xurgufi u dhaxayso nagala qayb galaan ama kala qayb galaan beelaha halka fadhiya in ay isku soo dhaweeyaan oo ay isfahamsiiyaan oo wax dhaxalgal ah oo nabad waarta dhala oo dawlad fiican dhala oo wax wanaagsana inay halka soo baxaan ma rabnaa ilaahay hadduu idmo waxaan ku soo dhawaynayaa beelaha ay ugu horeyso beesha sade oo aad iyo aad xurgufo badani ka jiraan mudug iyo galguduud labadaba beelaha fiqi maxamed oo xeraale iyo kala jooga iyo huurshe oo in la isku dhaweeyo la isku keeno u baahan meesha la yiraahdo buriceel iyo balanballe aan ognahay inaysan isu socon in la isu socodsiiyaan raba waxaan rabnaa in dawaysiintaani gaarto ilaa hiiraan midda ka socota dhibaatada ka jirta maaragtay waxba la qarin maayo maanta habareji iyo cali madaxweyne in la dhex galo oo aan taa u gudubnaan rabnaa dhab u heshiisiinta meeshaan ka furantay maanta waxaan ilaahay ka rajaynaynaa haddaan u istaagnana waa qaban karnaa anigu waxaan joogay shirkii carta shirarka aan hay-aduhu maalgelin wax natiija ka soo baxda hay-adaha waxoodu waa sun shirkii carta anigu waa joogay reer jabuuti waxay yidhaahdeen arigaya iyo geelaya yar baanu qalanaynaa uma baahnin mucaawano shirkii carta ood ogeydeen cid kala qayb gashay dowladda yar ee jabuuti ma jirin dowladda maanta soomaaliya ku naaloonaysana tii dhashay weeye
taana waxaa sababay in ay isku kalsooni iyo maaragtay ay naftooda ay aad ciriiri u geliyeen inay shirkaa hirgeliyaan aan noqonno kuwii maanta intii ka soo hartay carta kuwii heshiisii aan noqonno hobyana ha noqoto cartadii labaad anoo sii balballaarinaya dib u heshiisiinta maanta maxaan ku ballannay dib u heshiisiinta halka ka socota inay noqoto cartadii labaad aan intaa ku heshiinno inaan arigayga geedayga qalanno kalluunkayga la soo baxno oo isku biilo oo aanaan marna u hanqaltaagin maaragtay NGO iyo shaqadood iyo beel caalam inaynaan u hanqaltaagin aan isku dayno wax wanaagsan ayaa soo baxaya wax wanaagsan ayay dhali doonaan insha allahu tacaala waxaan shirkayga rabaa hadalkayga rabaa inaan ku soo gabagabeeyo galmudug way joogtaa weli ma tegin cid kasta oo hadda ka shaqaynaysana waxaan ka rajaynaynaa oo u soo jeedinaynaa in ay dowrkayaga weyn oo ugu horeeya inaan yeelanno ayaanu rabnaa inaan ku soo laabanaan rabnaa saaxada kama annaan bixina waa nool lahay وهجاج داود يال واحد الله سعتان وركن وردين سو قد بينه فضلا جنال كان هدي أذكر عصبت هاي سبسكرايب ده وحان هذه جركوزو قد بينه وركن وجود بيه عالم كي سوماليا حدان إجنا مركن هيئة الدوليستا يساداشة هودا دولة الصومالية يا صوص هرتي أمر كوسعدا كنا صابسن إن ديار ذها كي ماذا كنا صعدا مجال ذا كسمايو حرون تجبر كجبضة هو سجبل لنا يكوش قيسو إن أي صومران جرون كديار ذا مجال ذا مقدشو ورك قرال كاي كسو بحي هيئة ساداشة هودا لقوم الشيء واحد أنت كفافاسن لكن قبراء أمني أو هذا اللي واحد الشيء إن منك للربو إن وحلا بدلو قاب كستو أمام القبلة إذا كنت كان ديار ذها استقل الجوشية قبل ذا إيو عاصمة ذا هذا مرة كلا يجنو مدحوين فرماجة يا خطبتك الجديدة شر وضم أفريقيا يكقيب قلين أو تيجد اللي هذا شينزو آبي مدحوينها جابان مدن الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية فدرالك إثيوبيا مدن أنطونيو غوتيريس حوغيها جود قرمة مدوبي مدن موسى فقي قدوميها مدوغا أفريقيا مدحوين كحيجين كجمهورية كونفورت السودان مدن جيمس واني إيجا مدن محمود علي يوسف وزير كأرمها الدبادة جمهورية جيبوتي مدن عثمان صالح wasiirka arrimaha dibadda Eritrea martida sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin sharaf weyn ayay ii tahay inaan hadal jeedin ka sameeyo shirweynaha toddobaad ee golaha iskaashiga caalamiga ah ee horumarinta Afrika tigaa 7 oo ay martigelinayso magaaladan quruxda badan ee Yokohama Japan waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare mudane Shinzo Abe iyo dowladda Japan martigelinta shirweynahan tigaa 7 waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dadka reer Japan soo dhaweynta diiran ee ay u fidiyeen aniga iyo wafdigayga Thank the people of Japan for the warm hospitality extended to me and my delegation. gobolka geeska Afrika run ahaantii waa goob juqraafi ahaan leh astaamo u gaara marka la eego dadkeeda iyo taariikhdeeda geeska Afrika wuxuu kaloo goob istiraatiijiyad muhiim ah u yahay ganacsiga caalamka kheyraadka dabiiciga ah amniga iyo isku xirnaanshiyaha xilligan lagu jiro iyo xiriirka wax wada qabsi ee ka dhaxeeya dalalka caalamka balse waqti aad u dheer gobolka geeska Afrika waxaa dib u dhigay nabadgelyo xumo is-aaminaad la'aan iyo maqnaashiyaha aragti lagu mideysan yahay oo laga yeesho nabadda iyo horumarka ugu dambeyn iminka ayaynu ku soo toosnay baahida loo qabo in taariikhdan la bedelo oo aan u wada guntanno mustaqbal ifaya oo wada jir noo wada anfaca kaas oo ku dhisan is-ixtiraam is-aaminaad iyo horumarin ku salaysan iskaashi dhammaan dhinacyada waxtarka leh ee lagu gaarsiinayo barwaaqo iyo nabad dhammaan dadka gobolka iyada oo qayb ka ah aragtideeda xilliga fog waxaan ku cadeeyay ololahayga doorashada madaxtinimo in Soomaaliya mar labaad ay tahay inay ku soo laabato kaalintii ay ku lahayd geeska Afrika oo ay hormuud ka noqoto dadaalada dib u heshiisiinta tani waxay weligeedba ahayd welina ay ahmiyad u tahay sidii xasilooni iyo horumar ay u heli lahaayeen Soomaaliya oo kaliya maahe dhammaan guud ahaan wadamada gobolka
midaasina waxay ku xiran tahay iskaashi wax ku ool ah oo ay yeeshaan dalalka gobolka si loo